السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سومالي محمد ميرول بوندوني دافيدا كجوجتان انت كحرن جنرال كارشة برودكشن وحن idin leeyahay soo dhawaada waa kulankii kaarshe oo markani marti igu yahay marti hore oo aad u tiro badan haday noqoto fanaaniin haday noqoto inta markaas magaca iyo maamuuska ku leh bulshada Soomaaliyeed ayaad soo daawateen iminkan waa dadkii hore qof ka duwan وأبوان سوماليات وملحميسته waxaan dhihi karaa ninkii Soomaali ugu jiray markii la yiraahdo dhanka fanka iyo hal abuurka waa Bilig Hurfe Doore oo kamid ah abwaaniinta Soomaaliyeed Bilig ku soo dhawow Kaarshe Production ugu horeyn bal magacaaga adiga afka uga sheeg maadaama aniga ku sheegay aad u mahadsantahay oo dhawahay walaalkay Axmed Kaarshe Bilig Hurfe Doore saddex magac oo Soomaali ah markaan ma xulan adiga ma 2020 ilaa 2010 intaan arkay inaan sax cusub dadku iyaga xulan jiray waa gartay wada suuban iyo qurux badan iyo isku dhaca iyo lala baxaan garanaysa qofka magac ka helo sidii hadda suuqa tagto damacdeena shaar soo gadato sharku cashubiya la soo gataa sidaas oo kale naanisi laga dhigay kaaniga Bilig Hurfe Doore alla ii doore anu ma doorano waa ka horeeyay waxaan wataan malahay سودان دوسنا قدام بيسي هذا وين أبوان سودو بكلية هاي مركز حكتا سؤال واحد يرتو كوبان عن مركزي dadka martida noogu ah barnaamijka kulan Kaarshe aan ku weydiinaa su'aasha koowaad waxay noqon doontaa haduu abaydmo abwaan waa qofma horta abwaan waxa raba bulshada Soomaaliyeed inuu macneeyo wuxuu yahay niyo waxa la yiri hadal la waxaa ragnaa kii hore hadalna waa intuu yiri abwaan waxa ku daaranaya maadaama horta abwaan aad tiraan abwaan meey waxaan leeyahay darajo la gaaro weeyo aan wali gaarin halka taagan hadda waa ka duwan tahay wali ma gaarin oo waa marka la yiraahdo PH holder qofaade iyo dugsi dhexe qof dhiganaya cilmi ahaan bay kala noqonaysaa waqti badan ba ku soo jirtay intaan rabaan ku soo jiray wali dugsiga dhexe inaan joogay noqonaysaa sababtoo ah dhoodaan aad garanayso baka cud daartay inuu abwaan ahayn wali inuu soo gaarin noo sheegay mood weyn soo abwaan haduu dhoodaan diidaan waxa gaan joogaa marka miisaanka la saar waa gartay marka aqoonta aad yani macnaha aad ka fahansan tahay ereyga abwaan yaa noqon kara yaasi abwaan مثل Soomaalidu u taqaan مثل rag hore ka soo gaaray abwaanku waxa haduu rabo wax noqon kara qof aan gabiin heesin buraanburin chieftain midna qof aan lahayn buu noqon kara abwaanku wuxuu ahaa kaydiye oo sida dictionary-ga ama qaamuuska oo kale waxa qof hayay wixii hore jiri jiray iyo waxa markaa jira iyo saadaasha soo socotana ilaahay baa cilmi qayb og kama hadlaytaa laakiin saadaalin kara inuu hadaan muraayad halkan taalo ku dhufto gacan waxaan saadaalin karaa inay jabayso Soomaali macna saadaasha aqliga marka qof aqligaas 100 sano la soo dhaafay ilaa 100 sano soo socota saadaasha isku celcelin kara yani saynisyahankii baan waxaan oran karaa saynisyahan buu ahaa magacan abwaanku saynisyahan buu ahaa oo saynisyahankii Soomaalida ayuu ahaa abwaanku soo wala soo raray waxa laga dhigay islaanta buraanburta abwaanad hebel kan heesab abwaan hebel kan gabiya abwaan hebel marka dhoodaan waa kala baxay qariyaan mood qariyaan dhoodaan buu la baxay asoo ka cud daaranay inuu abwaan gaarin hadii asoo ka cud daartay jaamacadda darajada koowaad buu ahaaban oran karaa dhoodaan jaamacadda darajada koowaad marka asoo dhameeyay ana dugsiga hoosaan ku jira marka intaaba ku soo sheegtay abwaan aad ba ma santaa waxaan filayaa boqolaal qof oo hadda ila daawanaysa in markaasi ay fahmeen wax badan ay ka faa'iideen abwaan halkan waxaan ku hayaa maasooyin aad u tiro badan oo aad markaasi qortay mid walibana taariikhdeeda iyo wacyigelinteeda iyo qisadeedana wadata gaarka ah sidoo kale abwaanka waxa jira heesa aad u tiro badan oo qoray oo ay fanaaniintii hore qaarkood ay qaadeen iyo kuwa hadda markaan ku leeyahay kuwii hore waxa weeye laga soo bilaabo 2000 wixii inta ilaa 2020 qaar hore iyo qaar iminka kala leeyihiin balan soo qabtay maasada ugu horeyso waxa la yiraahdaa casri abwaan bal si guud waxa noo dul martaa waqti kooban qaadanaya maasada casri macnaha ay markaas ku fadhido qisadeedu waxay ahayd iyo waqtiga atriid inaanu daris ahayn baa soo xansaday inaan wax sameeyo ma garanaysaa
وقرت ترى هم بيقولوا يوصوا كراعي مو هي markaas ugu yiri 8 habeen oo la soo dhaafay habeen walba guriga imaanayo maqan yahay waa lagu hayay habeenka xagee qabataa هي kasi kaftana ugu jooga waxaan ku yiri dadka jacaylka la nool baan kamid ahayo raamboodka agtiisa istaago jacaylka ku wardiya وديها جعلك هي quraanka aan problem jacayl baa hees baan rabay inay iga sameeyso هي sheekada ninkii iiga sheekay hees ka badatay moogta ya شكلي بهاس كبدت hees bay ka badatay هي oo adiga ogtahay hadaya iyama waxa la yiri ma taqaan ها maxaa marka كليبيدي مقالة لصوت هذه تقاضي بطل ما أعرف هاس وكبضت ها هاس يعني أنت تسكت داوني وكبضتين وكبضتي مرك شيء كذا مرك هاس يقلب بضتين ها والله مراقبة سيد نمرة نيكو بقول تعالى شن كم بس كمل بانكاهن لا أنا بكون كبضتين شن كمل بانكاهن شن بس كل نوع كاهن لا بس كبض بعد لا أنا كبضتين بيها أيضا يقول عاي ما مثال واسدد تضوع حبتك كان لنا قرك وصار نعمل مليء oo aad u dhowaa waa tahay marka waxa ku yiraniyo wixii aan ka dhahayo barnaamijka ka soo gaaraya aan sunnimad du ilaahay raad ninka dib Soomaaliya arag marka waxaan rabaa inaan intaas asagana kiila uga dhigo calashadiisa ha la gaarsiiyo wardii jacaylka waa soo qoray haye waxay tiraahdaa caawiya jacaylada aynaan bidaan dahab 10 dooqa hagayay qurux iyo casaan badan codka hadalka sheekada cilmi laga aflaxayay umar urad dumarka sidatay cusub dhaaya qabashada ku canqariya maankaay sharafada urdinaho ceeb laga fogeeyay canabko bislaadiyo calcalyada xareed roob cabay oo ku naaxiyo nimco wada cagaaraad urub yahay mataalkeed caawiya la midab tahay quruxda cansaanka luquntiya cabaadiyaha cagta lagu socdiyo maan cabirqaadka gobonimo nasab lagu camirayo caadil ku saday carafiyo huqaad badan caaqiba wanaag leey cidiyaha fariya food gacma aan cilaan rabin caadal lagu majeertiyo tima caynad farasley cag intaan adduun dhigay ama aan caruus tagay ciroolaan waraystiyo culimada la kaashaday caynka aad u dhigan tahay aqligiiyo karaamada calanka aad u qaado cidna kuma agdhigi karo cadradii hayma joogaan ma aan arag cid kula mida mana maqal caruurnimo iyo caawa ruux kale urdan yahay hanaan kale nasab caynad bilanay darmaantii casuustee leerka shidan cawarayse carab iyo cadaan gebi afrikaan ka caano iniq laga sariigay in yaro ma garanaysa aan xumaan lahayn gayaan ceel cad iyo hawd ciid iyo ilaa dhudub cirifyada wardheer iyo caadiya walwaal sare urdankii ku ababtoo caano lagu barbaarshiyo ciil tiraahan sareley cilad waad ka dheertee kuma cawriyo noolo tixda calanka maansiyo codka heesta aan wado wuxuu yahay cudooney cudadaar muxuu yahay cudadaar deyn la cudaartaa maxay tahay cawil jamasho waayaha ku cidaada noolaha waqtigana canaan saar geesi ciile maalmuhu nin nasiib caburiyo calwasaad matamarba calafkiiyo wax qaybsiga waa calaamad qalin saxay waxse ay coloobaan caashaqa nasiibkee cudadaar madaawa horta inaan cadceeday calmashada kalgacalkiyo caashaqa qalbiga helay la calaacal mooyee calool dabac maleeya horta inaan cadceeday cindigayga kuu nugul horta inaan cadceeday cindigayga kuu nugul casar iyo hameenkana cadanyada jacayl qaba cisiguna ku laba yahay ma la qaybsan cadanyada intaasaan kusoo koobaya maasada sidaa bay ku timaadeen sidaa uga soo baxsaday wuxuu jacaylka markaa ku weerday oo nabaradii jacaylku aan isku darsatay halna aad u malaysay in uu kugu soo wajahan yahay labana aad ka bogsotay shanna aad iskaga mid tihiin waliba barbaranka jacaylka marka la iga sheekeeyo noolihii ugu horreeyay aan arko aan isiraado barbaran jacayl buu kaa badan yahay moogta hal nabar buu dheeraaday moogta aniga nabar dheeraaday waa tahay waa ka gudbayna waxaan galaynaa hees idinkuba aad daawateen oo ay qaaday fanaanada codka halaasiga
Mrs. Xiis heestaas waxaa la yidhahdaa dhaayo qisada ay ku fadhiday heestaa waa maxay abwaan diyaad soo qabto Mrs. Xiis horta aad baan u salaamayaa haye fanaanad boqorada dadkaan u jeclay ka mid oo iskooxna ahay waqti badan aan soo wada qaadanay aan ku xasuusto biliga waayahaaga laabta ku hayso erayga ma ilaawo bas ku xasuusto bilowga waayahaaga laabta ku hayso intaas waa qisa gooniya haye heesta qisadeedii waxaa dhacday barbalayn aad u mug weyn marka waxaa la yidhi dhibaatadu qof walba inta haysa baa barbalayn ugu filan oo nin baa wuxuu yidhi aabbaha adoo duugay oo damar la saarsaaray ka dareerka meydkii adoo dib u jalleecaya hadduu dacasku kaa go wadnuhu wuu danqanayaa buu yidhi dacaskii baa go-ay maxaa dhibaatada aabbaha inaad dhintaay waxay ahayd barbalaynka ugu weyn waad soo aastay markaad soo laabatay kabta kaa go'da oo ka dambaysaa dhibta soo maha hadba tii dambaysaa dhibtana kuugu sii daran buu yidhi soo qof walba dhibaatada asaga haysata iyo wuxuu isleeyahay dhib ka weyni ma jirto marka anna waxaan isleenahay barbalayn aad u weyn buu ahaa ma garanaysaa yaa nagu habsaday annagoo badan aniga iyo iyada iyo annagoo kooxa ma garanaysaa deetana shaqo adag baan ku jirnay heedhaga marka barbalaynkaasi adugu inaan intaa u dhaafo ma rabo dadkuna su-aalo badan bay heestii iga soo weydiiyaan waxay ahayd heestii igu saameyn badnayd ilaa 2017 ilaa hadda aan joogno oo igu su-aalaha ugu badan lagaa weydiiyey maxaad ka wadi madaxweyne anta ii yeeray wuxuu yidhi heestaan maxaad ka wadi xiisna way ogta saddex habeen kadibna iyadu inta u yeero wuxuu ku yidhi heestaan aad qaaday maxaa laga wada soo wada dareemi kartaa marka saameynteeda ay leedahay marka heestaan muhiimadda iigu weyn waxay ahayd naftoo dhaayo ilin dhab u daadaysaa daraf iyo xareed lisku dhaashataa qosol wacan dhibliya laga siinaysaa adoo adigu liibaanay oo caana isku daadinaya bay dadna gaajo u dhimanayaan waxaa laga yaabaa saamigii loo qoray ilaahay baa qalin loox maxfuudka ugu qoray qof walba wuxuu cuni qoran tahay marka waxaa la yiraahdaa tabashada barbalaynka ay dhashaa wuxuu yahay inaan anigu iska dhaadhiciyo caanaha ninkaas cabayo kuwa aniga la qoray inay yihiin inay yihiin oo qofna iska dhaadhicin ilaahay baa qoray ma lahayn laakiin nasiibkan ku heli karaa ilaa nasiibkii calafka uu jacaylka hadii aad colowdeen inta colow degan dadka ma wacdaysaan jacaylka calafkii iyo nasiibkii iyo jacaylkii baa colaadi ka dhaxaysa soo biraadinka iyaga saameyn ku yeesho Soomaa halkaas uga gudbeenaa heestaasi taariikhdeeda gaarka ay wadataa abwaankana siduu sheegay waa midii ugu su'aalka badneed hees kala jirtay oo anigu nafteeda aan aad u jeclahay oo ay qaaday fanaanada la yiraahdo Ifraax Qalbi heestaa waxaa la yiraahdaa bariido madaayo dareenka boqor bariido madaayo bal heestaa iyaduna qisadeeda bal hal iyo laba jacaylka ka beermay baaqi labadeena haduu ku balaadhay bogayga dhexdiisa baxnaayna ma siinay naftaan boholiyoosan bay ahayd mood waa gartay maxay ku timid qisadeeda miyaa laga dalbaday adigu miyay kugu dhacday sidee ahayd bal heestaa Ifraax gabadhan saaxiib ahayn bay asxaab ahayn aynu reer jijiga halkan ka salaamaya salaam waxa dhacday Ifraax baan hees baan Ifraax u sameeyaan si markay Ifraax iga tagto heestada iska qaadatay baa nin baa ii yimid taasina qisa jacayl buu iga sheekay kan ninkan waa asxaab baan nahay tan wuxuu ii sheegay waxaan aqaanay ninka inuu naag qabo moogto weliba gabar is jecel yihiin buu qabo tan wuxuu ii sheegay gabar kale oo jacayl u soo bandhigtay moogta asay deetana u sameeyana la markaasaan ku yidhahay waa labadii habeenimo marka xillidaas dhanbeen in la sheega ma badna waa xilliyada qofka la baarto waa gartay oo qofku marka body language ahaan baad u fahmi kartaa maxamada ka soo duuraysa ninka sheekada iiga sheekeeyay iyo waxay tahay deetana oo soo dhawaaday ana nabarada jacaylka aniga ku sheeganay markii aan u gudagelin marka waxaan ku yiri dhaag ma qabaan jecelahayo
mid kale lama karaye ها aynu dee xoogaa kala wareegsano هي kasta ku tiro waxaad ii ogolaataa keliya inaan kusoo arko moogta oo indhaha ku saaro ها هي markaan ku iri gabadha belada maxaa kulaha gabadha diriska tiin gabadha ma naqaanaaba soo markuu ugu bariyay baan soo baxay deetana waxaan doonayay inaan musqusha gala moogta waa gartay xoogaa musqusha guriga waxay ku taala deydka marka hal deyd baa naga dhaxeeya anoo dhan aniga gabadha iyo waa gartay deetana gabadhii baan arkayo hadba guri intaan wajhi dhaqanaya hadba saasi guriga usoo egtaa moogta hadba saas un bay soo tiraada deetana sawir waxaa iiga soo dhex baxay oo dee guriga ayaa ku jira ninka asaga sheekada iiga sheekaynayay jaleec ها baa isku soo aaday أنا هوست أما كخاوس موت أنا خاوس كوز كجرا ها أم بيت لا وحبة أكتر صار هذا بيقول تري إيه نيك هبل هم تشوجا هي أنت أنا نتشوجا بيقول تري سكيف دانا صار فيرني يرو تشوجا جابتي ولا سجوي أنت ما بيقول سجوي ده تعال كم وقت ومشكلة وحنون مين بلا آدم كواحد شرطة وقبصله وخشده ها مركا تعال كبر مي باقي لبده إنه هدوك برا دبوك كده حسنا بحنا مسيرين نفتح بوليسين قدام يجا بحنا يساعد بتاعنا قبو هذا وين إيه بريدة من داية درين كبقولة هاد بنتان صوت تقو إنهم صوت سلامهم كورا هذا في عنتا إيه وشوجا يمشوجا منا ما أنا ما لهن ويبسوقوا يديبه يلا تري إسكده أنا صوفي دق وقت تقولي هو كشيء ده soo eegtay inuu joogo in kale taana halkayga ma ku xishoodo shaarka ii soo qabta ka dhacday ma garanaysaa nabarada jacaylka laftirkeeda iigu dar halka aniga waxba iga gaaray ma garanaysaa ka gaaray boqol meesha bay ku timaadeen jacaylka ka beer may baqilaba labadiina hadduu ku ballaadhay bogayga dhexdiisa baxnaana ma siini naftan boholyuusan طبعا هيسها أو إذا حوي هيس أنا قصة كويمان مجرته هيس والبو أو مركز أبوانينتو ما أبوانك هتريا ما أبوانك لا هتريا يعني وحكوي ماذا قصة ذكرك إن أبوان وحوي بشدة نشيجيا إن أبوان بيلك وحوي برامج دي سبحان قندونا قوة حنا ما سويين كيس وقرينا واحد كذا على عندهم تان هدو بقدره وأي تاريخ رب نقندون تا إن kana daawan doontaan markaas generalka Kaarshe production abwan ugu dambeyn maxaad nagu soo gabagabeynaysaa barnaamijka waxaan ugu soo gabagabeynayaa ilaahay corona naga qaado aamin dee haduu jiro dad baa xoogaa shaki ka muujinaya ma garanaysaa waa tahay laakiin dad badan baa u dhintay islaan andari saahin baa waxay ugu tiri corona laga helay qofku ugu horeysay arko maalin dhow haye orodkan orday waa yaa xoogaa difaaca shirkiga shaki ka qaado haye orodkan orday waa la yaabay سو كورونا وحيالها كده حركة خطرتها وحكمتها تذكر يعني إهل كي قرابة أصحاب يعني هلا السلامة اللي موقتها تذكر على الصباط على إهل كا وهلا جورقة وحنا بكرنا ده هلا بوق يبقى سوكر يا حكمتها يلا بوق وين تذكر سلام انت رحت وقعد الدارتان وين صار سلام إلى يد إسلام حليمة هذا ويا رايدين شوكته وحن كبقينا كورونا شدوا ما كان رئيسا واحد يبقى كده هو كده وانت كده سوينا ما عليه شغالين بكورونا لقى هلا أدلو على موت الصومالي سديت قارب من موتك إسبيتال كيف حال هذه نسين نك حنوصل إسماعيل يا صوصة Soomaali meel u tagay lama karo magaalooyinka magaalo kamid ah oo hadda magaceeda aan sheegin baa jirta waxa la yiri ninkii ugu horeeyay laga hela corona markii isbitaalka la seexiyay 12kii oo galabnimo laga baxay 7 saac baa la seexiyay 12kii galabnimo waxa weey cidiisi oo timaado qori wadata ana ninkeena corona u seexinaysan beel قال قعيبة أنا كاي مدلي من كام قرنا يا هم قالوا قريسة لا يلا صباح وهم قالنا كاي gurigiisii baa ninka laga soo baxay gurigiisa geystay ma baananaya ninka wax nuusan yahay marka Soomaali horta waxa weeye ciidanka soo weeraray taliyo ham taqa abaan maxaa yaa ficil miba taliyo oo ah saaxiibka isaga wati ciidanka isbitaalka kala baxay ma garad marka Soomaali taariikhda gaarkeeda taa wax laga sheekeyn kor doonana way noqon doontaa طبعا وصوت دعوتي برنامجك waxaan rajeynayaa intaan badan soo daawatay inaadan nala dhaafin subscribe-ka share-ta comment-ga iyo waliba like-ka wadaga ku soo yaaca ni adag weey aniga soo noqon doona insha Allah rafaadka jacaylka sheekada ahaydna insha Allah barnaamijku soo socdo aad weyn boqon doona barnaamij gaar ah oo abaan markaas bilig uu noo jeedin doona jiri doonto haduu Ilaahay yiraahdo iyo tacdiida jacaylka aad weyn wuu soo socdaa wadada ku soo in haw sheeg laakiin adiguna hayso de intaan ku kulmin doono barnaamijkiisa xiga de waa anigii abaan ku idin leh amaana Allah السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.